siigada waxaa lagu qeexaa marka aad kiciso xubnaha taranka ee ragga ilaa aad ka gaarto in aad samayso kicin dhammaystiran ama biyo-bax. dhaqaatiirta ka shaqaysa caafimaadka iyo daraasado badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday ama la isku raacay in siigadu ay tahay wax caadi ah oo nolosha ka mid ah. haddaba dhaqaatiirtu waxa ay isku raaceen in wax walba oo la samaynayo dhibaato uu leeyahay. haddaba muuqaalkan cusub waxa aan kaga hadli doonaa khasaaraha laga dhaxlo siigada. haddaba khasaaraha laga dhaxlo siigada waxaa ka mid ah in tamar aad u tiro badan aad isticmaasho. mid ka mid ah khasaaraha ugu badan ee laga dhaxlo siigada waa in ay lunto tamarta muuqaalka jirka iyo tan maskaxda, waxaana la xaqiijiyey marka arrintan ay dhacayso ee siigaysiga ah in jirka uu isticmaalayo tamar aad u fara badan. siigada badan ama siigada isku xigxigta haddii aad samayso waxaa yaraanaya caafimaadka qofka iyo muuqaalka qofka. in siigada marka la samaynayo tamar badan ay lunto waxa aad ku garan kartaa marka qofka uu siigaysto waxa uu dareemayaa daal fara badan iyo wareer, maqnaanshaha maskaxda, in qofka marka siigada uu la qabsado uu awoodi kari waayo in uu joojiyo, taas oo halis ku noqonaysa caafimaadka qofka. in ay yaraato dareenka galmada marka qofka uu isku dayo in uu galmo sameeyo ma dareemayo wax raaxo ah. siigada isdabajooga ah sidoo kale waxa ay leedahay madax xanuun iyo wareer. calaamadaha lagu garto dadka sameeya siigada isxigxigta waxaa ka mid ah madax xanuun iyo qoorta oo ay xanuun ka dareemaan. siigada badan waxaa lala xiriiriyaa in ay keento ama sabab ay u tahay biyo-baxa degdega ah, waxaana la arkay ragga sameeya siigada badan in ay ku adkaato in ay xakameeyaan shahwada marka galmo ay sameynayaan. inkasta oo dhaqaatiir badan ay caddeeyeen in biyo-baxa degdega ah ay tahay xaalad caafimaad, haddana siigada ragga inta badan sameeya ayaa iyaguna dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah qabi kara. waxa ay dhaqaatiirtu ay ku talinayaan biyo-baxa degdega ah in ay sidoo kale ay saameyn karto tayada iyo wax soo saarka shahwada ragga. samaynta siigada badan waxa ay keentaa tinta in ay daadato. marka qofka siiga badan uu sameeyo waxaa siyaada hormoonka loo yaqaano testosteronka. marka hormoonkaasi uu siyaado waxaa dhacda in uu sii siyaado hormoon kale oo loo yaqaano dihydrotestosterone. hormoonkaasi waxaa lala xiriiriyaa daadashada timaha. hormoonkan la yidhaahdo dihydrotestosterone waa hormoon leh sifooyin xoog badan oo androgenic ah. hormoonkan muhiimka ah waxa uu door u ka ciyaaraa qaangaarnimada, waxa uuna ka caawiyaa ragga in ay horumariyaan astaamaha raganimada. hormoonkan la yidhaahdo dihydrotestosterone waa estrogen, taas oo micnaheeda uu yahay in hormoonkaasi uu kiciyo dareenka ragga. siigada dhibaatooyinka kale ee laga dhaxlo waxa ay tahay in ay caqabad weyn ay ku noqoto nolol maalmeedka ragga qaar. marka raggu ay sameeyaan siigada waxaa inta badan ay lumiyaan shaqooyinka maalinlaha ah ee ay qabsadaan. daraasado ayaa muujinaya in siigada badan ee isdabajooga ah ay keento in qofka uu ka haro shaqada, ama in shaqadiisa seegseeg ay gasho, in iskuulka uu ka haro, ama in uu iska daayo in uu xaadiro kulamada muhiimka ah ee shaqadiisa ama noloshiisa la xiriirta. sidoo kale daraasaduhu waxa ay muujinayaan in qofka siigada ay ku qasabto in uu aadi waayo ama in uu qabsan waayo shaqooyinka maalinlaha ah. sidoo kale qofka siigada inta badan sameeya calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in mas-uuliyadda iyo xiriirka kala dhexeeya dadka ay wada shaqeeyaan ama xiriirkiisa jacaylka sidoo kale uu lumiyo. sidoo kale siigada badan ee isdabajooga ah waxa ay qofka ay ka dhigtaa qof dareen ahaan kacsan, islamarkaasina xiriirka aanay joogteenin. khubarada caafimaadka iyo daraasadaha waxa ay sheegayaan in qofka marka xaalado sidaasi oo kale ah uu la kulmo in uu u baahan yahay in uu helo la talin aad u saraysa. haddaba daraasadaha qaar waxa ay sheegayaan in qofka ragga ah uu ka hari karo siigada haddii uu dadaalo. siigada waa laga soo kaban karaa, waana la joojin karaa haddii qofka ay ka go'an tahay.
si aad isaga joojiso siigada waa in qofka uu siigada uu ka istaagaa marka hore, in qofka uu ka fogaado fikradaha galmada iyo dumarka la xiriira oo uu wax kale uu isku mashquuliyo oo uu ka fogaado shahwada. sidoo kale qofka si uu uga fogaado ugana soo kabto siigada waa in uu ku degdegaa guurka ama uu guursadaa. sidoo kale qofka waxay dhaqaatiirtu ay kula talinayaan si uu uga soo kabto siigada waa in uu cunaa cunto jirka dhisaysa islamarkaasina waxtar u leh maadaama dheecaan badan jirkiisa ay ka baxeen. si uu qofka uu uga soo kabto siigada iyo dhibaatooyinkii jirkiisa ay ku reebtay waa in uu cunaa cunto waxtar u leh jirkiisa. sida aan horey u soo sheegnay, siigadu waxa ay dishaa muuqaalka jirka. haddaba waxaa digniin ah in dhalinyarada qaarkood ee ragga ah ay ku haligaan siiga badan naftooda, waxaana la wada ogsoon yahay in siigada badan ay dhib u keento qofka ragga ah. inkasta oo ragga iyo dumarkuba ay sameeyaan, haddana muuqaalkan gaarka ah waxa aan kaga hadalnay ragga oo keliya. waxa ugu weyn ee aan ka soo hadalnay waa in siigada ay dhibaato badan ay u geysato jirka ninka inta badan sameeya siigaysiga. inta badan waxa ay jirkiisa ay ka dhigtaa siigada qof caata ah oo aad u tabar daran. taasina waxaa u keena biyaha markasta uu iska saarayo iyo fikradda badan ee ku jirta ee ah in haween kasta uu la kulmo. inkasta oo ragga qaar marka ay siiga badan ay sameeyaan, marka ay guursadaan ay ka lunto dareenka ah in ay galmo la sameeyaan xaasaskooda, ayaa haddana waxaa usii dheer in ay ku dhacdo xaaladda ay ragga qaar ay ka cawdaan ee ah biyobaxa degdega ah, markaas oo uu garan doono in biyobaxa degdega ah ay tahay xaalad caafimaad daran. waxa ayna dhaqaatiirtu ay sheegayaan in markaasi qofkaasi uu ka fakeri doono in uu raadiyo daawo si xaaladaasi uu wax uga qabto. inkasta oo dhaqaatiirtu ay sheegayaan in muddo bilooyin ah ay ku qaadan doonto qofka in uu ka soo kabto siigadii dhibaatada u geysatay jirkiisa, ayaa haddana cuntooyin haddii uu cuno oo waxtar u leh jirkiisa, waxaa laga yaabaa in tamartii iyo awooddii ka luntay jirkiisa ay dib ugu soo noqoto. haddaba daawade, haddii aad ka mid tahay ragga tirada yar ee ku dhiban in ay iska joojiyaan siigaysiga, waxaad samayn kartaa marka hore waad ka haraysaa samaynta siigaysiga. intaasi kadib waxa aad ka fogaanaysaa fikradaha galmada iyo dumarka la xiriira, oo waxa aad samayn kartaa in maskaxdaada iyo wakhtigaaga faraha badan aad ku mashquuliso shaqooyinka kale ee aad haysato. si aad sidoo kale isaga joojiso, waxa aad ku degdegaysaa guurka oo ah nasteexo islamarkaasina lagu dego. waxaa laga yaabaa in shaqooyinka gurigaaga iyo shaqooyinka reerkaaga aad ku mashquusho, islamarkaasina guurka uu kuu noqdo mid kaa reeba xumaanta, islamarkaasina ku fara wanaagga iyo in aad dhabaha ilaahay uu kuugu toosiyey aad ku socoto. sidoo kale si aad uga harto siigaysiga, waxa ay dhaqaatiirta qaar ay ku talinayaan in aad salaada badsato, islamarkaasina soonka aad sidoo kale ku daba xijiso, maadaama qofka haddii uu soomo uu ilaahay si toos ah uu ugu xirmayo, islamarkaasina ay suuragal tahay in uu ka haro wax walba oo xumaana. sidoo kale salaada iyo soonka oo aad joogtayso ayaa faa'iido kugu filan, waxa ayna kaa reebi doonaan xumaan oo dhan. waxaan filayaa maanta mawduucii aan ka soo hadlaynay in aad fakar fiican aad ka haysataan. janalkanna waxa uu gaar u yahay cilmiga caafimaadka. fadlan si aad ugu xirnaato subscribe dheh, sheer garay qaybta hoose, ra'yigaaga ayaad noogu reebi kartaa.